laba sano ka hor geeridiisa ilaa hadda Lee Kuan Yew waxa uu ka mid yahay shakhsiyaadka aad loo hadal hayo isla markaana aad loogu falaqeeyo goobaha caalamiga ah ama yani shakhsiyadiisu ay noqotay mowduuc laga niqaasho ama laga doodo taasoo laga fikiro ama aad looga qoro sidee ayuu Lee Kuan Yew ku horumariyay dalka Singapore mowduuc bayna hore uga sameynay ama muuqaal bayna hore uga sameynay oo markaa aynu aad ugu faahfaahinay haddaba Singapore waxay ka mid tahay mid ka mid ah dawladaha ugu horumarsan caalamka maanta oo Lee Kuan Yew sababteeda uu lahaa ama hogaamiyihii isbedelka ka dhaliyay Singapore uu ka mid ahaa waxyaabaha haddaba aad loo falaqeeyay ee runtii aad loogu talax tago ee aad loo runtii focus badan la saaray waxa ka mid ah sidee ay waxbarashadu qayb ka mid ah uga noqotay horumarka maanta ay ku jirto dalka Singapore waxa uu sheegay Lee Kuan Yew mar la wareysanayay in uu iri istiraatiijiyada kaliya ee aan maanta aan haysto ee dalkayga ku horumari karay waxa weeyaan in aan horumariyo isla markaana aan kobciyo oo wax walba aan geliyo resource kaliya maanta Singapore haysato kaasoo ah markaa shacabkeeda waxa uu markaa ku dadaalay in uu Singapore ka dhigo mid aad uga horumarsan xagga waxbarashada sida ay sheegtay munadamada loo yaqaan munadamada al-iqtisaad wa taawun wa tanmiya ama OECD taasoo sheegtay in Singapore ay ka mid tahay mid ka mid ah dawladaha xagga waxbarashada iyo madaarista ee goobaha jaamacadka dunida kuwa ugu horumarsan ka mid ah isla markaana la jaanqaaysa yani heerarka kala duwan ee markaa dunida la jaanqaadaysa inana hore u soo sheegnay xataa manhajka wax lagu dhigo markaa ay qaatay Singapore inuu yahay mid ka mid ah yani manhajta ugu wanaagsan isla markaana ka baxa luqadda Ingiriiska haddaba Singapore aynu naqaano markaa horumarka inta la gaadhay waxa aad loo hadal hayaa in waxbarashadu ay qayb muhiim ah ay ka qaadatay marka waxaan doonayaa in isla wadaagno waa maxay juhuudda iyo dadaalada kala duwan ee Lee Kuan Yew iyo markaa dadkii ka dambeeyay ay ku bixiyeen waxbarashada dalka Singapore iyo sidee ay waxbarashadaas uga qayb qaadatay in horumar ballaaran laga dhaliyo dalka Singapore waxaan isla wadaagi doonaa qoraal ay sameysay ama ay ka sameysay qodobkaas ama mowduucaas majalada loo yaqaano Project Syndicate ama website dabcan laftigiisu ah kaasoo markaa aad u falaqeeyay mowduucan soo dhawaada dhamaantiin saaxiibayaal daawasho wanaagsan السلام عليكم صاحبي كل سودو هذا بركولتين عبد الله المنصوري واحد رجعني دمانتي بين دوعناني ولا كل سوانتين كل سودو بركولتين هذا كل عصب تاي وكم نقاط صحابتي سأت ظهر نقول جرتنا سودو مركله وحنا سلوا داري دون سنة هراء كل صور شيء موضوعه سدي أي وحبرشة وراق قيب قاطي هرمركا دلك سنغافورة وحنا سوق عندنا مركا شن دينع وكإستعارين وحبرشة كعصو مركا كاركتي وحبرشة دميت تيسن أورمتي آد هرمرسن قبل الكواد دون أن سوق عندنا حويان ومجلد مركا إنوسو تبينسو waxa ay waxbarashada ka bilowday Singapore halkii uu ku joojiyay isticmaalku maxaa laga wada halkaas waxa uu Lee Kuan Yew markuu ka sheekeynay ama uu yani ka hadlay yiri ma naan ka wada tagin isticmaalku wixii uu noo keenay ee markaa yani manhaj iyo qaabkii waxbarashada wax loo dhigay kama aan wada tagin oo qayb iyo wixii naga khuseeyay baan ka qaadanay qaab cusub oo markaa bilow ah oo yani sifir laga soo bilaabayna kama aanan bilaabin balse waxa aan khibradii hore anagoo adeegsanay ayaa waxaan ku dul dhisnay maxaa ay Singapore u baahatay marka wuxuu aad u daadifeynaya uu leeyahay waxa muhiim ma aha markaan doonayna in manhaj la sameeyo in cid kale inoo sameyso in cid kale ay noo dejiso manhajka aynu rabno in cid kale afkaarteeda iyo sida ay u shaqeynayso iyo sida wax u aragta marka anaguna aynu u soo qaadano oo marka hawsheedii aynu u galno يعني مثلا تصالحان سيستم دقالة أو وطن كله كجرا هدي أندوني وطن كي إنه كشقيه وإنه مركا قاب كي وشقي لها يسيد وشقي لها وإلى مركا كفكرة لكن ما هصيد وهالك وشقيه إنه هالك الناس توصى وشقيه waxa soo kale uu daadifeynaya uu leeyahay kamaana wadatayn yani afkaartii hore iyo aragtiyadii hore iyo khibradii hore markii hore lagu dhisay manhajka Singapore kamaana tagin laakiin kuwaana wixii wanaagsan aan ka soo qaadanay waxaana aan ka fikirnay qof noocee ah bay maanta Singapore u baahantay taasoo markaa yani jawaabtii ka dhalatay aan ku dul dhisnay manhajka markaa aan rabno marka qodobka koowaad waxa weeyaan inuu yahay manhaj yani u madax bannaan Singapore oo markaa iyagu ay fikirkeeda leeyihiin isla markaana ka turjumaya ama haraya ama soo saaraya qofka marka ay rabaan qodobka labaad ee soo qaadana waxa weeyaan ee ka dhigay waxbarashada dalka Singapore mid aad u horumarsan oo aad u tayeysan waxa aad ugu dadaaleen oo marka ay aad u kobciyeen manhajka ay haystaan oo ka dhigeen mid mucaasar ama mid cusub ay ka dhigeen maxaan ka wadnaa mid cusub waxaan ka wadnaa inay ka dhigeen mid la jaan qaadi karaya manhajka dunida ka jiray caanka ah yani mid la jaan qaadi karaya inay ka dhigeen oo waxay leeyihiin manhajka waxbarasho ee dalka Singapore gaar ahaan marxaladda secondary wuxuu toos ula dhigmaa ama toos ugu eegyahay waxbarashada dalka Britain secondary-da qaabka wax u dhigaan ayuu toos ula mid yahay kaliya waxaan ka bedelnay yani ardayda Singapore yani xaaladaha ku nool yihiin iyo siyaabaha ay u fikiraan iyo dalku waxyaabaha raba iyo in yar wax ka bedelan waxyaabo muhiim ah ku soo darnay waxyaabaha kalena aan yani meesha ka saarnay laakiin sida
sida kale si guud waa yani mid isku mid ah oo marka aanu khibradaha dadkaasi ay haystaan aad marka aan uga faa'iideysanayno waxaa soo kale aan ku dadaalay leeyahay manhajka qayb kamid aan ka dhignay in ardayda laga dhiso xagga hoose yani sida xagga hoose maxaa kamid ah in yani shakhsiyadiisa la dhiso in yani wadaniyadiisa la dhiso in yani inuu dalkiisa u shaqeeyo oo qof dalkiisa iyo dadkiisa wax u baranaya inuu noqdo aan runtii aad uga dhisnay waxaa soo kale ay sheegay inuu manhajkaasi yahay mid ku dadaalaya يعني إن أرضي إيا معانك بقى يسوي الرقيب قاطان أو مركا مدول برجال لكنسي يوحو قابك أولي يوحى أرضي ودجان مدول بصيني أو مدول مركا عاوني أو هرية وحصل كلا يكون دالين inay sameeyaan centers ama xarumo waaweyn oo waxbarasheed kuwaasoo markaa ka qayb qaadanaya in ardayda dalka Singapore loo fududeeyo in caalamka kala duwan ama dawladaha waaweyn markaa waxbarashadooda aad u sii horumarsan tahay ama yani kuwa fiican waxyaabaha qaar in markaa ardayda loo diro oo markaa halka waxbarasho fiican ay ku soo dhigtaan waxaana ay Singapore ay leedahay mid kamid ah muassasaadka ugu waaweyn ee runtii xagga waxbarashada ka shaqeeya taasoo markaas ku xidha waxbarashada dunida kale ka jirta iyo waxbarashada dalka Singapore ka jirta tusaale ahaan yani hadii loo baahay maanta Singapore u baahantay cilmi gaar ah in si fiican loo soo barto marka dad yaqaan la soo barto waxay u direysaa marka 5 qof ama 10 qof ama yani kolba inta u baahantay u direysaa iyadoo munadamadaasi marka ay ka shaqeynayso oo marka ay hayso marka waa muhiim in la helo ama dal kasta uu helo munadamo ama hay'ad ama yani organization ka shaqeynaya hawshaas oo marka ardaydeena xoojinayo oo waxbarashooyin fiican siinayo ama tababaro u furayo ama yani dunida kana la jaan qaasinayo in marka la sameeyo waa arintii wax aad u muhiim ah marka qodobka labaad ee aad ugu dadaalay waxa weeye in manhajkoodina ay tayeen manhaj ka wada qayb qaadanayaan ardayga iyo macalinka uu noqday soo kale ay sameeyeen marka xarumo aad uga qayb qaadanaya horumarka waxbarashada dalka Singapore iyo in ardaydu ay fursad u helaan in dunida kale ay wax ka soo dhigtaan oo marka xagga ay aqoon ka soo kobcsadaan qodobka saddexaad soo qaadanayno ee ka dhigay waxbarashada dalka Singapore mid aad u tayeysan waxa weeyaan waxay maal gashadeen macallimiinta dalka Singapore waa qaar mushaharkoodu aad runtii u sareeyo isla markaana uu la mid yahay qofka dawladda caadiga u shaqeeya taasoo ka dhigtay in marka ardayda ka qalin jabinaysa waxbarashada ay shaqo u raadsadaan yani goobaha iyo fiilka waxbarashada ay aad uga shaqeeyaan oo marka halka ay risqiga ka doontaan maadaama mushaharkeeduna fiican yahay tayadeeduna marka ay aad u wanaagsan tahay tayatalka macallinimada uu aad marka qiimo u leeyahay dalka Singapore waxa soo kale ay aad ugu dadaashay Singapore si ay ardayda ugu soo jiidato waxbarashada ama fiilka waxbarashada in aad looga shaqeeyo ka dhigto waxa ay sameysay qof kasto doonaya in uu dibadda waxbarasho u aado ama uu dawladda minxadeeda u helo ama scholarshipkeeda u helo waxay ku qasbeen inuu qofka 2 sano dalka u shaqeeyo oo marka uu halka dalka uu yani ugu adeego kadibna marka waxbarashadiisa freega marka dawladdu ay ka bixiso dibadda marka uu ugu baxo waxa soo kale marka yani ihtimaam gaara iyo muhiimad gaara la siiyay in macallimiinta yani la kobciyo aqoontooda la horumariyo dhinac walbana marka yani laga horumariyo waxa soo kale macallimiinta lagu dadaalay qof kasta oo marka macallin oo tayo fiican la imaado oo aad wax u bara ardayda oo yani guulo fara badan soo hooya in isagana marka yani mushaharkiisa iyo tayatalkiisa kor loo qaadayo oo marka ay ku dadaalaan macallimiintuna inay wax badan ama juhdi fara badan bixiyaan si marka meel sare u gaaro oo marka mid ku xiran ama yani lagu xirayo qofka inuu title sare oo waxbarasheed gaaro yani dadaalad uu qabtay ee marka ardaydan iyo dadkan jiilka soo baxaya uu qabtay taasoo marka ka dhigtay qof kasto fiilka waxbarashada ka shaqeeya inuu sida ugu daran ama sida ugu yani awoodiisa ah uga shaqeeyo fiilkaas si uu marka yani injaaz ama horumar fara badan uu sameeyo halka uu doonayna marka uu gaaro waxay marka intaas ku tusinaysaa in si weyn ay ugu dadaashay Singapore waxbarashadeeda oo marka ay ka dhigtay mid aad u tayeysan yani indhaha ardayda iyo indhaha dhalinyaradana ay aad u soo jiidatay inay fiilka ka shaqeeyaan oo ka howlgalaan qodobka afraad ee soo qaadano ee ka dhigay waxbarashada dalka Singapore mid aad u horumarsan waxa weeyaan waxay mar walba waxbarashada ku saleeyaan halka la marayo iyo mustaqbalka halka la gaari doono runtii muassasaadka ka jira ama goobaha waxbarashada ka jira Singapore waxay aad uga horumarsan yihiin inay mar walba qodobka u dambeeyay soo qaadana waxa weeyaan Singapore waxbarashada ka dhigtay yani sumadda ay leedahay Singapore yani waxa kaliya ee ugu qiimaha badan leh ee ugu sareeya inay ka dhigtay marka yani waxbarashada سادرد بمؤسس كوينا سنغافور لينك وايو ومر لغا وريساني waxbarashada uu yiri kun sababood doodatankii تعريف للرجل المتعلم هو رجل لا يتوقف ابدا عن التعلم ويريد ان يتعلم يعني تعريف كان سين لها اما قيحتان كان سين لها قفك متعلم كوحبرتا وحويان وقف ولكي ان دوني انو جوجي waxbarashada isla markaana sii doonay hadana inuu markaa wax sii barto waxaan markaa ogsoonahay waaqica ka jira Singapore dhexdiisa inay tahay mid aad uga horumarsan xagga waxbarashada isla markaana aad ugu dadaalo tayeenta iyo yani in astaan waxbarashada qof walba uu lahaado يعني قصبنا لقى دغ qof kasta oo marka yani qoys kasta inay wax bartaan oo marka qof kasta wax barashada aado hatta ki awoodi waaya in goobo free ah loo sameeyo oo marka wax ku bartaan
waxaa runtii cajiib ah janaazadii ama meydkii Lin Kuan Yew markii la isugu imanayay halkii yani lagu xusayay meydkiisa inay ahayd mid kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn ee Singapore taasoo loo yaqaan jaamacadda Singapore al-Wadaniya jaamacadda yani wadanka ee Singapore ayaa markaa lagu yani janaazadiisi la keenay halkaasoo markaa yani ay astaan qarameed ay ugu sameeyeen halka meelaha kale iyo salaam madaxtooyada iyo goobo kale markaa lagu sameeyo iyagu jaamacad bay la dooteen taasina waxay ku tusinaysaa heerka waxbarashadu ay ka taagantay dalka Singapore iyo dadkiisaba runtii halka waxaan ka arkaynaa dalka Singapore iyo dadkiisu inay aad ugu dadaaleen waxbarashadu inay noqoto mid kamid ah kuwa ugu horumarsan ama waxyaabaha ugu muhiimsan ee runtii aad ugu dadaalayaan taasoo si weyn uga qayb qaadanaysa in bulshadaas ay noqoto bulsho tayeysan oo ku tayeysan waxbarasho kuwaasoo markaa noqon doona yani qaar wax soo saara oo markaa dalkooda horumariya waa muhiim in waxbarashada ummadaasi ay horumarto ummad walba oo doonaysa inay horumar samaysana waa muhiim in waxbarashadu ay noqoto mid ka qayb qaadanaysa in ummadaasi ay horumar samayso isla markaana la mid ah yani heerka iyo tayada iyo habfikirka iyo waxa ay doonayaan ummadaasi mid la mid ah inay noqoto inta ku kulmana waxaan kaga tagayaa nabadgelyo salaamullah